السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب سؤال هذا ميل ولا جوكتان سوى مقالك يديسو قراي وحيد الله هاي جمعة وناس مقالك يجي مانتي مع المهم هود أيام كم مغنى علة فرصة أوجد أيام هود ومغنى مقالك يجي مانتي وعكسها بزي هاي كلية وحنا يستوى وقتيا وحنا بقينا مقالك كسو قليو كلن كوين لندن دربي كده عندنا جرونك أرسنال جلسي حنا بقينا واحد كي هذا يساعدنا أنت دينا كبحثنا labada macallin shirka jiraad waxay maanta loogu wareystay ciyaartoyda available-ka ah ee ciyaartoyda la heli karo kulankan inta muuqaalkayga gudaha u galay waxaan kaa codsanayna marka hore page-ka inaad follow dhahdid lacagtaada waa noo muhiim sii share garay oo saaxiibada gaarsii kusoo dhawaada muuqaal cusub waayahay soo noq wanaagsan haddii aan ku hormarno marka hore macallinka kooxda Arsenal iyo shirkiis jiraad wuxuu ku sheegay maanta تيتا أو واحد لقى ورستي بكاية سكا حالديس عافمات يكون كان اللي هلي دونه وكل جوابي بكاية سكا لما هلي دونه وحنفلينا إنه سول أفتو ودبلو هلو أفتر إنترناشنال بريك على صعوتان أسبوع مركز العيار هوريال كبريمي ليجا وحلا هذه دونا ولما ذا لو يخان إنترناشنال بريكا دب أيال سوق ولا بدونا أرتيتا أو واحد لقى ويدي كولنكا وين الشامبيونز ليج ولا في العيو إنه يسود ويان كوح ريال مدريد waxay noo tahay ayuu yiri sharaf weyn inaad la ciyaartid koox haysato 15 Champions League sida Real Madrid oo kale inaad la ciyaartid Champions League waxay noo tahay khibrad weyn iyo sharaf ayay noo tahay ayuu yiri inaad la ciyaarno kooxda Real Madrid waxaana jeclaan lahayn ayuu yiri inaan ka soo gudubno Real Madrid aan ku guuleysano Champions League haddii aan u wareegno kale kooxda macalinka Chelsea Enzo Maresca shirkiis jiraad wuxuu ku sheegay Nuno Madueke iyo Nicholas Jackson inay soo laabadaan after international break balse macalinka Chelsea ayaa xaqiijiyay Ruben Sanchez inuu ku soo bilaabo doono goolka ciyaarta u dhaxaysa Arsenal iyo kooxda Chelsea saawad ognahay markii ugu dambeysay ee Chelsea booqato garoonka Arsenal Chelsea waxa lagu soo adkaaday 5 gool waxba markaasuu goolka ku jiray Ruben Sanchez balse maanta Sabras ayaa loo noqotay markuu xaqiijiyay Ruben Sanchez inuu ku soo bilaabo doono goolka kooxda Chelsea waxa dib ugu soo laabtay Lavia iyo Wesley Fofana kulankaasi waxa ku saadaal leedahay adiga qaybta hoose la wadaag fikirkaada aniga hadii aan saadaaliyo kulankaas Chelsea oo saddexdii xilli ciyaareed ee la soo dhaafay markay booqatay garoonka Arsenal loogu soo adkaaday markii la isku daro goolasha wax ka badan 12 gool Chelsea Arsenal oo ku jirta kaalinta labaad iyo Chelsea oo fadhisa kaalinta afraad كلية waxa u dhaxaysa 6 dhibcood Chelsea oo xaqiijinaysa inay u soo baxaan Champions League iyo Arsenal oo u dagaalamayso horyaalka Premier League inay ku guuleystaan ay dhahayaan wax waliba ayaa dhici karo horyaalka anaga wili iskama rajo dhigin oo wili waa u dagaalamayna haddii aan saadaaliyo kulankaas wuxuu ku soo dhamaan doonaa 2 gool adigana qaybta hoose la wadaag fikirkaada ciyaartaasi waxay ku dhamaan doontaa intaas ku soo gabagabeynaa muuqaalkayga maanta ee ku saabsanaa kulanka weyn ee London Derby oo soo gali doono bar waqtiga London kooxda Arsenal ayaa soo dhaweey doonto kooxda Chelsea oo ku maasantahay haddii ay la soo gaartay ilaa dhamaadka muuqaalka si shar garay oo saaxiibada la wadaag inta kulmi doono muuqaalka xiga sidaas iyo nabadgelyo